hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee NIRA waxaa sanadihii la soo dhaafay ay qaaday tillaabooyin muhiim ah oo lagu xoojinayo nidaamka aqoonsiga qaranka. adduunka standardku waxaa jira guidelines hagaya in qof kasta loo adeegayo inuu leeyahay aqoonsi aan isbedelin oo one time soo baxa oo maaragtay lagu hubin karo. hay'addu waxay u taagan tahay in aqoonsiga soo saarto. aqoonsiga ugu weyn oo soo saarno waa 12 number oo aan weligaa iska ka bedelayn ilaa aad ka dhimanaysid. waxaa la diyaariyay 13 sharci iyo habraac rasmi ah iyadoo la howlgeliyay 54 xarumood oo diiwaangelin ah guud ahaan dalka laga bilaabo caasimadda ilaa dowlad goboleedyada. sidoo kale hay-addu waxa ay qorshaysay in 30 safaaradood oo dalka dibaddiisa ah laga hirgeliyo adeegga aqoonsiga qaranka si shacabka Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan loogu dhaweeyo adeegga. in ka badan 550 howlwadeen xirfadlayaal ah ayaa tababar loo sameeyay halka adeegyada casriga sida hubiye iyo aqoonsi iyo nidaamka gaarsiinta shahaadooyinka ee CDS la hirgeliyay. waxaan diyaarinay systems ugu horeeyo systemka hubiye system aan ugu talagalnay inay isticmaalaan dhammaan adeeg bixiyaasha ama ha ahaadeen kuwa dawladda ama ha ahaadeen kuwa aan dawliga ahayn. hay'addu waxay soo saartaa card oo physical ah oo laf ah. waxaanu ka mid noqonaynaa waddamadii ugu horeeyay oo Afrika yeelanaya digital card. digital cardku xogta lagu soo bandhigayo waa xogta maaragtay ku qoran ID-ga rasmiga ah ayaa isagoo digital ah waxaa lagu soo bandhigayaa waxaana laga heli karaa Apple Store iyo Play Store. waxayna u sahli kartaa qofku inuu 24/7 inuu mobilkiisa ku haysto aqoonsigiisa adeegna ku heli karo. systemka saddexaad waxa weeye system certificate delivery system. hay'addu waxay soo saartaa shahaado marka qofka la diiwaan geliyo markiiba muddo aan maaragtay saacad ka badnayn wuxuu qofku la deegi karaa shahaadadiisa. shahaadadaasi waxay dhinaca sharci la weyn tahay ID-ga physicalka ama ka digitalka oo qofku leeyahay adeegyada uu ku heli karaa. waxaa la diiwaan geliyay 100,000 oo muwaadiniin ah waxaana la daabacay in ka badan 300,000 oo kaar aqoonsi ah. hay-addu waxay sidoo kale ku guuleysatay in adeegyada kala duwan ee dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay qaarkood lagu xiro kaarka aqoonsiga qaranka sida baasaboorka, leesinka, socdaalka gudaha dalka, bangiyada, waxbarashada iyo adeegyo kale. tallaabadan waxay caddaynaysaa sida ay NIRA ugu heelan tahay adeeg hufan, kalsooni iyo aqoonsi casri ah oo noqda furaha helitaanka adeegyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee dalka.